warahmatullahi wabarakatuh walaalaha waan wada salaamay marka hore waxaan la qaybsanayaa program daayada masha Allah walaalaha inta badan soo codsadeen daayadkii masha Allah walaalaha iyo qaabka la iskaga rido hilibka iyo waxyaabada jirkiina anfacaya iyo waxtar kale halka hadaan kaga soo bilaabo waxaan hayaa shaah herbal tea la yiraahdo wax walba ka kooban masha Allah u faa'iido badan sidoo arkaysiin shaaxas halkaas wax timo eeg bad ka aragtiin oo ku jira ما شاء الله الشاحة وحو كان فعيا وحيابا فربضان أقواتي وحو كاكوبين هاي إنو قفك بلا آذان كهرقب كاكائل عليو ما شاء الله انفكشن كوكالي انتي انفلاميشن كوكالي وحيابا فربضان ما شاء الله إن هرددا هادي كوبيرتو كالي وحد كردي في شاحة درتالي إن وحيابا فربضان سكين كاغا ما شاء الله كليها إنو كوصفيو إلا دا علوش كاغا ترى استرس داد قبتي أو كالي ما شاء الله وشاح إن دلتركيس ما شاء الله أدو عيها وحا كترة دركيسين وحيابا كترة ما شاء الله حتى أيرون بقصينيها جركاغا فربضان ما شاء الله أيو قصينيها aad u wanaagsan waxa ku xiga aan doonay in la shaaran gareeyo geedkan dadka caloosha constipation ka xitaa caruurta wala siin kara qaati waa geed ma sha Allah walaalahan garanayna rabayaan baro ma sha Allah waa miro waxa iibiya dadka Aasiya wadanada Aasiya aad uga baxa wuxuu kala u caawiyaa dadka sokortoodu kacdo oo kale aad buu caawiyaa weight loss-ka number 1 buu ka yahay ma sha Allah cholesterol kale siyaabo kala nooc badan buu leeyahay geedkan noocyada badan buu leeyahay oo la soo baldhigi doono hadda brown-kan kaliya ka arkaysaan kalaradiisa la buusho bixiyo ma aragteen marka galeyda la buusho bixiyo kale saas oo kale iyadoo cad iyadoo caan walba leedahay marka waxa jira dhiikarka u fiican yahay dad kale cholesterolka ayuu hoos u dhigaa inflammation-ka dadka qaba ayuu ma sha Allah u fiican yahay jirkaaga detox waxa qashinka dhan uu ka soo saaraya ما شاء الله داس marka loo iri qofkan wuxuu caawinayaa xitaa hilibkiis ka riday wuxuu u caawinayo way qashinku jirka ka saaraya magaciisa daarabtan insha Allah waa kaas dadka walaalaha raba meelaha Aasiya kale waa laga helaa waxa kale la qaybsanay xabag cadaad oo wadankeena laga helo dadka Soomaalida jooga dooreen iska ridan hilibka xabag cadaadaas waa shiidanaysan aqwaati iyadoo la shiidana waa taas meel walba adduunka way taala marka shiidid subaxina wad cabaysaa 3 glass oo biyo kulul aad ku cabaysaa ku laaqanaysaa marka koob deeqaysa check 3 glass deeqay oo kulul bad cabaysaa biyaha ku cabaysaa habeenkina wad cabaysaa jirkaaga xitaa uu soo ururinaya ma kala yaacayo timirtan waa ajwadi timirta kale waxa la dhahaa timirta cas Aasiya iskala timirta cas waxa lagu cabaa suubka inagu faxfaxa markaan karsanayno amba maraqa hargabka loo karsanayo kala lagu darsada akhwaati isaga iyo geedka gojo berry boorashkana waad ku darsan kartaan geedkan aad buu ma sha Allah xitaa indhaha dadka dhibaatada ka qabo kale faa'iidooyinkiisa isagana lama soo koobi karo haddaan geedkan ay taabto waxtar energy-ga number 1 buu yahay dadka indhaha caruurta waad siin kartaan akhwaati boorashka kale ku dari kartaan wuxuu yahay antioxidant baa la dhahdaa ma sha Allah fiican yahay blood pressure ku fiican yahay cholesterol ku fiican yahay xitaa hamiga qofka bilaadanku ku fiican yahay indhaha uu aragtidu ku fiican yahay beerku u fiican yahay menopause-ka kale dumarku markay ku tiraan oo kale uu ka caawinaya marka ka hortag hadii isnafaqayso kale fertility-ga dumarka uu fiican yahay anxiety-ga xanaaqa iyo stress-ka waxa soo dhan uu fiican yahay kaliya xitaa una bid ma sha Allah maskalada iyo ilkaha ma daragtay muruqyada oo dhan buu fiican yahay qofka bilaadanka memory-ga aad buu number 1 ugu yahay ma sha Allah ilmaha inta badan hargabka ku soo noqdo kale difaac fiican buu noqonayaa haddii siisan amba smoothie ku sii amba boorash ku sii ma sha Allah waxba ma diidayo geedkan shaahana waa loo cabaa akhwaati dadka chronic dry cough ka haysta mar walba waa cilad dadka qaar haystaan dadkaas oo kale aad ugu fiican yahay hurdo la'aanta iyo dhibaatada dadka haysato kale aad ugu fiican yahay akhwaati marka ka faa'iideysta geedkaas waxaa marka loo eego kan waa cacao ma sha Allah dadka sokorta laga kari waayay ilma cayilan oo sokorta laga kari waayay amba qof weyn oo sokorta iska kari lahayd waa aragtid geedkaas aad shiidaysaa biyo yar baad ugu laaqaysaa kulul cabaad leedahay 3 cisho 4 cisho week hadaa siisid carabkiisu khalaas macaanka uu ka go'ayaa believe me or not ma sha Allah waxa weeyaan uu ku tarbiyadeynaya laba shayba cuntadu waa tarbiyad geedka qalkana qofka maara cuntada looga waayo 10 jeer 4 jeer maanta oo dhan ku noqonaya iska kari waayo dawo kala hayirsan marka si fiican u daragtid yar ka bacdi biyo soo qadacso
qaadada teaspoonka ku laaqo strogaaga ku nuug, isagaa kaa jaraya. saddexdaada waqti ma inaad cunto kala raadinaysa ma arkaysid. waxaad ku darsanaysaa molosiska, aad ugu fiican yahay maasha allah. molosiska iyo isaga aad iskugu wacayn, isku darso ku samaysa maasha allah. saliidana aad u fiican tahay akhwaati, calool istaag kuma arkaysid. haddii ilmahaaga calool istaag qof weyn iyo qof yarba waxay ku fiican tahay boorashkaad ku darsanaysaan. dadka daaidka waxyaabada cuntada cunaysaan, salaadadooyinkaa ku darsanaysaan, wax walbaad korka ka darsanaysaan maasha allah. lama soo koobi karayo. marka inaad ka faa'iidaysataan geedkanaan iloobay oo rosib weeyaan. rosib waa wada taqaanaa, saliidda wejiga aad wada marsataan dumarka maasha allah. vitamin maasha allah vitamino fara badan bay leedahay. A C E lama soo koobi karo akhwaati. vitaminadeed maasha allah, calcium, magnesium, wax walba mineral. marka saliidaas yar waa qaali wada ogtiin, waa midhaheegii. shax ahaan inaad cabtaan baan ugu talagalay. isaga iyo goji berryga iyo red dateska haddaad ku darsataan ood maasha allah biyo korka ka darsanaan, biyo karkaraya deen waad cabaysaan. 3 jeer maanta dhan haddaad cabtid, iskiinkaaga haddii uu kalarkii ka tegay amba dawo ama isku cadday amba problemkiisu way soo celinaysaa. 3 shay haddaad isku qaadatid, rosibka, goji berryga iyo red datekaas, beautiful. aad buu qurux badan yahay markaas maasha allah. walaalo markay iscaydanina jirka uu ka fikiraan waa muhiim. waxyaabada aad ugu muhiimsan bay ka mid tahay, siiba inuu ka maqnaan geedka kalena kamuga maasha allah aad ugu fiican yahay akhwaati. waa geed liintoo kale in ka badan maasha allah u dhiganta qofka bili-aadanka difaacaysa. boorashka marmar waxaan jeclahay markaad daayidka samaynaysaa inaad kan ku badishaan, ilmahana aad siisaan. ilmaha calooltaaga ka cabanayo kale boorashka ugu dara sometimes. aad ugu fiican yahay geedkan, lama soo koobi karo. siyaabo badan oo naga soo bandhigi doonaa sida loo isticmaalo. waxyaabo badan buu geedkan ka anfacaa insha allah na tusi doono. waxa kale oo yahay akhwaati saliidan oo iyaduna vitaminadeeda hooyada aan ka gaadhin inay nafteeda maalintii cunto 5 khudaar iyo 5 vegetable waad ogtiin. cagaarkiina 5 ka cunto, khudaarta 5 ka cunto, intiiba haddaad awoodin, xitaa caruurtaada awoodin. ilmo waxaa jira cunto xun oo ogtiin. ilmahaas oo kale akhwaati u quura lacagta, ilmaha u iibiya, siiya maasha allah. difaaciisa kor u qaad. ilmaha difaaca aad ugu fiican tahay, siiba ilmuhu markuu soo gaadho eeshashka 12 waad ogtiin ee cunto xun yihiin, iskuullada secondary-ga amba meelaha tegayaan, ilmihiina uu cunto xun yahay. ilmuhu waqti limit baa jira, hormoonkiisu jirkiisu uu korsiinta lafuhu ma aragtay intuuna istaagin in lagu saacido si uu korsiintiisu u dheeraado maasha allah. cunto fiicanna maasha allah u qaato. markaa ku saacida adiga hooyaana enerjiga dhan waxaa la rabaa hooyadu inay nafteeda kow ka bilowdo. haddii adiga mooteera guriga aad waxba cunayn amba waxba cabayn, subaxii kan haddaad afkaaga 10 drops ku samaysid maasha allah. laakiin laazim hooyadu wayna quraacato ee quraac fiican cunto. boorash oo kale kaliyaata. boorash waa wax degdeg badan, waa ogtiin, waa 5 minutes. wax reerka dhan aa u samayn kartid, korkana wax kaga daadsan kartid maasha allah. saasaa kuu fiican. anigu maasha allah kugula talin hooyaday naftaada ka fikir. weeg loos haddaad samaynaysid jirkaagu adoona istaaga ka dhicin, dawakhin qurux badan weegi kaa dhaca lagaa dareemin jirkaaga, nafaqadaadii aad inaba caadi ahayn maasha allah. saasaa la rabaa akhwaati. waxyaabada inta badan dadkeena ka dhiman waa taas. ajumaduna ma ba'no maasha allah. haddaad haysatid inaad habeenkii maasha allah 1 xabo aad ku ridatid biyo madeen amba smoothigaaga ku samaysatid. hadduu qofku quraac dheelitiran cabo, qadadii oo kalena smoothie ka dhigto oo baxayo shaqo tagayo, smoothigiisii hore usoo qaato, cashadiina toos casho fiican cuno maasha allah. 2 mid amba cashadaad ka boodaysaa oo smoothie ka dhiganaysaa, wax la shiitaad ka dhiganaysaa oo labada kala cunto caadi cunaysaa, amba quraac aad smoothie ka dhiganaysaa maasha allah. waa inaad mid ka boodaa oo cuntadaada wax la shiida aad ka dhigataa. saasaa kuu qurxin maasha allah. kulleyba waxa weeyaan walaalahayo, wax walba waxa weeyaan wax lagu gaadhaa qofku siduu iska hamigiisa iskaga jiro. waxa kale oo meesha iloobayna niga hadlo xabagcadaada wadankeena way taala walaalaha aad waxaysan inay iska ridaan maadadan aad buu maasha allah. waad maqasheen probiotica way la dhigantaa maasha allah. maada aad inaba caadi weeyaan. calooshaada waxay ka saaraysaa bakteeriga ay u baahneen, bakteeriga fiican bay ku deynaysaa. constipation isku arkaysid, calooltaag iyo dhibaatada isku arkaysid. dadka ka cabanaya bakteeri ku soo noqonayaan afkooga amba meel kale maasha allah way ka raysanayaan.
xitaa afka bacteriga hadduu kusoo noqnoqdo amba af ur amba dhibaato cilada caloosha ka timaada ay tahay way ka saaraysaa. Fiber fiican bay leedahay. Fiberka waxa weeyaan waa wax calooshaada aan fadhiisanayn oo dhaqaajinayo oo masha Allah affirmationka jirkaaga oo kale haddaad isku haysa dhibaatooyinka qabtid oo kale aad ay uga fiican tahay. Siiba waxay aad ugu fiican tahay dumar ahaan baa leedahay masha Allah baasha. Boodigana waxay ka saartaa wixii cayila waad ogtay way la dagaalantaa wixii faad oo dhan way ka saartaa masha Allah aad bay masha Allah baashan lama soo koobi karo waxyaabadeeda marka la eego qiyaasteeda masha Allah ilmaha xitaa laftigooda waa u safe haddaana ilmaha aad way ka ridin laakiin aad caloosha oo kale u dhaqaajinaysid safe bay u tahay masha Allah waa la iibiyaa akhwaati mar walbay taalaan aadna waa ugu fiican tahay marka inaad ka faa'iidaysataan ood cabtaan aad u fiican tahay akhwaati haddaad weight loss samaynaysid waa number 1 weligaa hawday ma lahan inaad weight loss ku samaysid waxyaabada aad ugu fiican weeyaan jirkaaga ku anfacaysa bacteriga way kaa saaraysaa oo waxay tahay property ahaan bay samaynaysaa cilada caloosha oo kale hadday ku haysato cilad kugu soo noqonayso calool guux calool dhibaatadaas oo dhan haddaad isku qabtid masha Allah hawday ma lahan iyada laftigeega marka walaalaha waxaan ilaahay faadka way ka saartaa boodiga aad iyada iyo liinta madaragtay bambeelmada iyada iyo liinta bambeelmada masha Allah way isla shaqeeyaan akhwaati midba mid buu la shaqeeyaa liinta bambeelmada bad meeraysaa biyo karkareed ku shubaysaa iyo iyadii markaas la laqday liintiina ku dul meeraysaa waa isla cabaysaa masha Allah waxaan ku odhan lahaa khalka upper side vinegarkana molassaska ku samaysa iyo biyaha kulul way isqaataan masha Allah say isku qaataan baan kuu sheegaya masha Allah marka walaalahayow intaasaan igu gabagabaynaya insha Allah waxay su-aalaan way soo qori kartaan qofkii raba bahashaa saliidda insha Allah igala soo xiriiri karaa hoosta igu soo qori karaa linka aan soo dari karaa insha Allah aad masha Allah way anfacaysaa wax badan waa faa'iido leedahay hooyada aan ka wada gaarin inay wax badan nolosheeda vitaaminada mar qura ay wada qaadato faa'iidooyinka waxa weeyaan dawooyinka lama soo koobi karo iyadoo faa'iidooyinkeega marka masha Allah qofka bini'aadanka qudrada inta laga rabo intaas u dhiganta qofku inuu cabay maalintii 10 dropski waa 50 xabadood oo green tea oo cabto kale masha Allah wadarkaysaa 100 xabadood oo waxaad cuntay sumaatada oo intaas oo kale la dhigantaa waa laga wadaa masha Allah vitamiinka ku jira iyo masha Allah toba wadarkaysaa qofkii macaan qaba qofkii timaha dhibaato ku qaba wax walba way anfacaysaa masha Allah dimashiga dadka xasuustu ka tagtay dadka beerka oo kale amba madaragtay dadka wadna xanuunka oo kale masha Allah way farabadantahay ma soo koobi karo hadda insha Allah mar baan si gaar ah kaligeed uga sheekeyn doonaa insha Allah iyadoo tafaasiilshan insha Allah nagala soo qayb galaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت سامي بسوق بقى يا اخواتي.